لحلنكي كن يسقال بقول يلبي لحلنكي وتاني تيجي أفتى تستوب نقطي إن أنا يدك عاطفة كوجي مشوا ديار واحد من مدينة كوسيتشران وحالك كان عاي انقلابه ركب بدن طلقوا حري وحنا سببته وين يا حيد ما دام عايدين على الصوماليا ديدين إن دراسة جمهورية الصومالية كنت ما تصي شرعية ما دام عايدين شرع لماذا سي أو بحي أي كبر لها أو إن وحلا قيبصدو أو هدي الشراكوبية اللي يدحضو وحاصنا حتى سوي وحانا وين كرلاني وحاول وضلاني ولو ولبين تاسي لادي أما عدالتي هكتر تامية كترني وحسيس لقويا إنو صوب حوالي ما دام أنا صوب حدين الصوماليا وحلتمي إني مدحلمتي دلك وطن دمان أي كسب تشيستان بين عقوطورتا تاسانا الله من سي حيسيه أي هيين محمد حاشد مع الجارية أيام مرء وحي دعي وطن iyo sababtii halka xurriyada loo geynayay erayo kooban ku sheegay waxa uu yiri niyad samidii waaga jirtay ayaan wax iska saaraa xaqiiqada dhabta waa sida marka arinku waxa weeye waa lagu duudsiyeeyaa adigina gartaadii si fiican uma soo dhigin oo day unified oo dhaba waxaynu ka hadlaynaa marka waxa weeyaan in wax yar soke ولا سوق ولا ليال دوعان كان ولا حسوق دي دبي يعني بسيطة هل كان هو شيء إنه من لبد دولة واضح أو إن الدومينات كريه أو دبي أين كولايس كريين ودي دين إلا ما أنت ده يجيب الدولة دي شجنايا وإنه ياباني ما كان تجني دي iyagoo isla burtayska asla yuman dhaxkal inagoo dawlad neutralization ma soo waa kala dhaxkalno masaalix baan noqonay maanta baa nafku haya badbaadso masaalixdu bay doonayaan idka la joogsatay mana jacaylku ay ku doondoonayaan moosa hadday jacayl tahay Soomaaliyeed intii kala mid raadiyaan ya shalay wadna kala dhex joogsatay ilaahay noo ka soo diray anaga tagin maanta ka ay dhex joog مسألة هذا يدون دونيا والله وحكلا يربعن سومالي دونيا إنه مجرته كل شيء كذا في وليبة كل شيء أي اسمهم كياشين سحكمك عبد الله عيسى الله كأحا مرحوم عيال الله نحرس أفكي سنة وشك يعني شق فلاني الصومالي إسراع ضي الحربي كل هالكلام سكر ولا تروح إذا كان ما أنت حره إذا داخلي اللي هو ضد الصومالي الشرين كرائه سوق هاي أود الصومالي وحسويدين إيه حرنت أسوأ شيء منك فكر جرتالكي عمرنا ضربتي مو يعني تالكي القاب تستوى الرئيس تعسل جي ولا يغفل يمشي الله رسول عفوا باليوشي ماشي arrintu halka markay marayso waxa iga muuqatay nimanka koonfurta maanta ka hor wareysiyadooda iyo doodahooda cadaawada inoo qabaan inta ay leegtahay imika hortay Soomaali bixin walaa ku aqoon sheegta walaa ku siyaasi sheegta walaa ku sheegta wax kala sheegta waxaan leeyahay marka kolka la arkay hadalada waxa tolo ma isku tartaarmeen nacaybka Soomaaliland ma iska tartaarmeen maya waxa iyagu ay wada aaminsan yihiin marka inagu haddaba waxaan u baahanahay inaga lafteenu sida iyagu ay u aaminsan yihiin adigu wada isku tartaarmeen in wada aaminsanaano waxaan ka iraado ayga dambayeen
saaroon arkana anigaa leh indhaha waxaan saaroon arkana anigaa leh darbeya basturaysa anaa ka shisheeya 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 ishiisaya xaaska ilmadu ka da'ayso oohinta ka dhacaysa oohinta ka dhacaysa wacaliyo xigaano Soomaaliye garo kala kurki maahe kala gurasho weeye garo wacaliyo xigaano Soomaaliye garo kala kurki maahe kala gurasho weeye garo kaladan korfeeyo inaan gaadho faashado gadafooyin dhacayo waayaha gardaajo waqtiga gunaanaday anna waxaan gudiyayo midkan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin arrimaha shirka wadahadallada ee Jabuuti lagu qabtay dhawaanta haddii aan ku soo noqonno waxaynu isweydiinaynaa waa maxay faa'iidada ka soo korodhay ee shirkani kaga duwanaa kulamadii hore waxaan qabaa nasiib wanaag ilaahay fursad buu inoo siiyey inaynu madal dowladu goobjoog ka yihiin madax kale goobjoog ka tahay in innaka iyo Soomaaliya isku keen dhegaysto ganacsigeena la dhegaysto xalku wuxuu ku jiraa dowladuhu fahmaan waa arrin farxadeeda leh waa madaxweyne Muuse Biixi waa madaxweyne nasiib badan fursad uu helay madaxweynayaashii hore ma helin waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan marna leeloobi karin waxa weeye khudbaddii taariikhiga ahayd oo shirka ka akhriyey madaxweynuhu waxay ahayd khudbad ididiilo gelisay qof kastoo reer Somaliland haddii gudaha joogo iyo haddii dibadda joogaba. From the beginning, the union malfunctioned as Somaliland people were hugely oppressed. The people of Somaliland expressed their displeasure with the union by overwhelming voting against the new constitution in the referendum held in 1961. muddo 22 daqiiqo bay khudbadu socotay muddada madaxweynuhu wuxuu raadraac ku sameeyey taariikhdeenii oo dhammaystiran uu ka bilaabay israaceennii si wax loo qaybsaday burburkii dhibaatadii ummadda soo martay halkaan maanta gaadhnay ee dowladnimo dhisannay doorashooyin xor oo xalaala aynu qabsannay maantana aynu himiladeennu tahay inay dowladda madaxda iyo shacbiga Soomaaliya oo aqoonsadaan goonisataanka Soomaaliland nuxurka ugu weyn diblomaasiyadda waxa weeye inaad qofka kaa soo horjeeda inaad adigu qasdigaada wadato ku qancisid weeye diblomaasiyadda waxa weeye inaad ku qancisid nuxurka ugu muhiimsana waa kaa weeye inaad ku qancisid hawsha inoo taallaa waxaa weeye inaan madaxda iyo shacbiga Soomaaliya ku qancinno inuu gooni isutaaga Somaliland
wanaag iyo faa'iido u soo kordhiyo Soomaaliya maahay inaan wax dhibaato ah Soomaali u geysan hadday Soomaaliya tahay iyo Soomaalida kaleba Soomaalida waa walaalo wajeer jooga iyo عاشق وفقاني نستيح وبقاته عاشق وفقاني نستيح وبقاته عاشق وفقاني نستيح وبقاته نستيح